مقشو هو هكو مقشو ما واس أقبلني أنا كنا حيسوا أقبلني ما واس أبو حوالي أنت لنا عن تذا لنا ما قبل بهدي أصلا مستعجل ورحولها باسو أكشي كيسين أنا ما أركو ما قانو هذا ديك سقطت بتقان ما نوشة ما اللي دلي محاك أوكت مامي أنا ما أنا بحدي ما أنا بحكره أنا ما أنا محقق لك نبات أوجي سلو سكري هو هي زي شو هدي سوق إريدي أنا محاول كم كره يا وحما يا وفيعنا معنا نبات أوجي استي هو في عام خف هاي توقف على المجرتو لا تلعب أوجي سلك ولا قربك صبي عننا ما جيسني مامي أبو سكن بقسمي إني قدعة لبتنا بقسمي قبل واش أسومي قبل أول شيء سعديو أنا صاحبتي أهيد ما أحوم يسبوا معن أنا محميننا محاول لك يحكي لي سيديو أبو دقيسو أنا أقول هو إذا تيجي هو إذا تيجي هو إذا تيجي إذا هذا ما تفهم قبل ويسك بس وش ريز لا كل هذيني ويا أتيجي أبو قبل أسأل ما تسألني أنت قلت جا تقول ما تاريخ ولا دام حماس أنا نحمي معهن بدك هذيك المكبر الما هذا على شيء وده سموجد ما أنا اسكت دم هذا واي وش ريز أنا أتيجي محاكو على وقلت يا أبو قال ويا صاحب أحين هذا نبت كشرته حرمين ساعد يا أسوق هذا حالك بدك يقول قرون وجهك تو أنت عادي وبركاس هذا I don't know ما خانوا لكن ماما محاكو تري ما كل ما خويا كل واحد كبده كم وكذي بعطيس تو يسوي لا تلاقي تسمع أنا ما إيدي سلك مقطع هواي هذا يكون مقشين نفسه تقول نفسي كرت أيضا يكون سوق لي سوكليه مقطع إن شرفت هواي شرفت إنه أدمر وقدع أبو هاي قبل على حماس أنا محميننا وريا حماي قبل أنا محانري أنا كل أقول واتي كل مقالة تجيك قيمة بدلتها حقوق قيمة بناوي المهنة وضع أبد كذا سموجد هذا وضع تقول كيا كويس وأوشي إن أنا دلوا وقتها أبو أنا سيقول عمك بقى اسمي شرفت محمد وبيسس يقول بديله مالها قارئ هذا الله قارئ كويس أبو قولنا مساكين ويا تواقع تقان سكول كاوي مساكين والله الله waxaan ku yiri xitaa reerkooda hal maalin waa idin qabaya dadka ha ogaadaan hal maalin ku qabo xoolo ma taasi hal maalin qof hal maalin qaabo nolosh waxa ugu ciyaar gabadha walaalo ala kulli xaal intaas wax ka badan oo sameyn kara ma lahan wali ya Allah ma qasho qof guri dhinaal dhisaa hal maalin dhisaa bis maami abu sawakaayin abu waalantaay ma dhimantaay sawakaayin horta waa qaldantaadii raxan abu ma khaldin gabadhaas gabar masaakiin waaye mafaati gabar saaxiibtay dala waayo mafaati qof sheeyna ma had saaxiibtay waa saaxiibtay iskuulka soo dhigi jiray wax fahan maskaxa ku shaqeysa qalbiga ku taagane ala kulli xaal hooyo hadii ereyas ku maqasho hooyo isugu sheeg hadii hooyo ereyas kugu maqasho war ha maqasho hooyo ha ku maqasho ma waas u gubanaysi ara kana hayso u gubanaysi maas abu xoolo inta leena hantida leena ma gabadha u bahadili oo soo istaagay war xoolahan baaso aad ka shakeysin anu ma arko ma aqaan waxa hada dib ku sugata taqaan ma noosha ma dhimatay ma la dilay maxaa ka ogtay maami anu maana baxayde maana bax ku dhaa anu maana maxay ka galay dhibaatada u geysa loo soo ceeliyay hooyadii dhasho hadii soo eriday anu maxaan ku qaban karaa yaa ugu xuma yaa ugu fiicnaa macnaa dhibaatada u geystay hooyada u fiican qof hooyada uga fiican ma jirto dhibaatada u geysay gabadha guriga ka soo bixinina ma geysanin kama soo bixin aniga alla ma maana ku faasiya wala soo ku faasiya ilmahay wadana way dhashay anuna aaban waa wax alla ay gurso ma gursanayo gurna diyaar u miisaan gurso waa maxay gurso ma gursanaydii maxaa gursi leedahay waa uu khasbay abu maxaa sameeyna gabadha soo dhibtoodis hadda maxay ku ogtay madi joogto ala kulli xaal erayaan marka dambe aadiyati mar dambana hayla iimaan mid kalena mar dambana ha sameyn abu bilaadmin ka adeeshay bilaadmin ka adeeshay waxa ka baqaysiina nafsidu ugu noqdo ana igu dhaco gabadha ku dhaco birka maalin ka baqaysid أنا ما مو فاهمة كلامي.
دواي دواء عافي ماذا وعليكم السلام وفي عنا ما شاء الله خير والله هيه الحمد لله ما شاء الله سيتا waa sii socotay ها بس سعودية إيه سيتا عفمتك fiicana haye خير والله awreerow هار waxaad aniga ii sheegtay ها iyo waxa guriga la tagtay ها maxay yihiin maxaan la tagay habar yar weligaa intaa ku aragtay gabar hal maalin la qabayo oo la furay caalamka intay ku jirtaa habar yar hortii dhigeyso sida wanaagsan aan ila hadlaysa ma awoodi weysi inaad hooyada gabadha dhashan aad sidaas wanaagsan u waan hadasho ula hadlay hooyo hadda ku sheega habar adiga nafkaaga hooyo waa ula hadlay si wanaagsan yaanu intaas si ka wanaagsan oo aqaanana ma laha maxaa si wanaagsan inaa hal maalin ayada keensatay de maxaa kaasi maamada ayada marba dhinac oo ku dhayso maxaa ilaadaa maamada ma ila ku hal maalin qab no aniga markaan u tagaybo hal maalin qab iyo hal maalin dhan isugu maaninba qayle indhaha dhagayga raacday waxaas waa hooyo hadda hooyo ha ahaato dhibaato ay ku jirto ma fahanti fiiri dhibaataha ku jirto ma diidani hooyo laakiin waxa fiican respectigana inuu meesha ku jiraan way fiican tahay aniga iyada xil baanu kala mudannahay dee inaan is ixtiraamno is qadarinana meesha way ku jirtaa hooyo soo maahan dee aniga maadaama aan dee wanaag iyo xal iyo si qurux badan aan u socdo in yah heer ay dharbaxdo candhuuf ay ugu tuftay gaartay haddaba candhuuf iyo dharbaaxsho meesha ee taal horta maxaa kiinay habboon way qaldan tahay laakiin aniga sida ila hadashay waxay ii sheegtay sida wanaagsanada aniga ila hadashay inaadan adiga u soconinood si kale ugu tagto waji kale ayada ugu tagtay ma fahantay kule anina ma aqaano labadiina adika is aragteen waxa ku wada tagteen ayadan war baa sheegaysa adiguna war baa sheegaysa oo maxay dhan wiilkii akhlaaq daro u maade dhal inay igu jasjaso igu imaado tir gabar iyo guurkeed igu miimaado xitaa walaashay baa u tagtay ay soo caysay soo aflagaadisay maxaa intaas kadib anagu bahdil ma qaadan karno de ay burnays waa walaashay weeyaan way ii sheegtay anigu ma arkin gabadhaas kowde way ii sheegtay laakiin waxa u fahmay ma walaasha baa sacdii ku shirqashay ma sa ku shirqole wanaag bay raadinaysay walaashay alla aniga i haysatay xitaa hadda habar wanaageedii ka talinaysay hadda ma ka go'anta sacdii inaa guurso xalxalkii shalay oo u socota muu socota mas waxba iska bedelay waxba iska bedelay waxa iska bedelay annaga intaas ka badan bahdil ma qaadan karno ila heer walaashay la bahdilo hooyada loo gafo aniga la ii gafo sharafta intaan soo ka hadda meesha imaad dadka loo gafo anaga waayo oo gabadh ma ka dhibaataysan tahay aniga waxa ku dhiilay arinkaas hooyada ina ka tagtid meeshaan dumar ee ka taana dumar ka kiilo dhashay ay imaado walaalkeed ahay oo mudada maqnaay inaad asiga u imaado oo kala xaajood waxaan maqli jiray ka daro dibi dhal ka daro dibi dhal walaalkeed anu waan saqanaa hooyada waran aqoonsho hore iska daa meesha hadda waxa taalo gabar iyo ilmaheeda taalo ma fahmaysa guuraana meesha yaala maanta is hore ay waxa satana ma jirto يعني waxa ku dhilaa inta walaakad u tagto wanaaga haduu wali meesha yaalo waay hadad adigana waxaad heedbo qowda maqshi waxna u qaban hadaa heedna ii sheeg habaryaro macaano awr ma ahayn qowda maqshi hadaa ka goonana gabadha inaad guursato oo ninkeedii cunugeedii waxay isku waxaysatana waxa dhigi jiray guurso walaakad baa joogay may aniga maxaa la yiraahdaa waxay habboon sheegaysaa dhab ah maahan hadda waxa ku sheegaya aniga hadda walaalkeed u tago dhigeysa habreer aniga hadda walaalkeed u tago haddana aniga sharafteeda u meel uga soo maxaa ya kafaarad qaaday waxa dhan soo duduub ya kafaarad qaaday ku dhacay malahan anaga dan baa maanta meesha jirtay anaga garku ku haystay habaryaro macaano hadda wanaagi aad shalay noo haysid waay haddii kale tarsamahan haddii habaryar macaan waxa isku sheegnaa oo meesha u dhow أنا سأسافر إلى إلى دقيقة شرفت دقيقة احترام. وين؟ هوي. هرتو إلهي ما هدي هدا أبدي ما قشي وهذا كيجي ما قش هذي صار نقطة كودي. طب حين وصل هذا هوي. دقيقة سد واحد كوسع عليه. هرتو هوي أدو نبات هذا قريب مسؤول كأ. ولا شيء هذا مسؤول كأ. هذا البوس كأ بيهدي بوس ولا نمو بجري. هسا هتي واحد سمي سمانت أنا وكفر أحسن وكوقنا أحسنين. هذا لكن وقبل هذه حياة أياد آير يقبحضي أما أنا أما قبل نباتر آير بس قبح التلفون نجا قبويدي يا حافظ أنت يا نور منه نسودي مسؤوليته هاي شل يقرن ويسنا ما أنت يقرأتين محي شل أنا مركان لها ورقبضان علنا ورقبضان إذا بسنا قفك هور تاجنا سوق بينها سعودي هاي ما هين أنا هو حاجاتهم مسؤولية أنا وشل مركان قادنا قفك هور تاجنا مسؤولية هاي سعودي ما هين أنا هو حاجاتهم مثل واحد اسمه لاين مثل هذه الددانة كنترول كينا بطة طيب أنت كنت أنت إلى لين أنت سويت
horta waxa hor taagnayn waxa ma maya controlshan iyo daba gurti baaba sheekadan keentay horta waxaan ka hor istaagnayn soo inta ma ahayn taan baaba keentay bas hadda adiga ya hay keenaysaa inta idla cadaadinayseen oradka isqaadota cilada yani idan waxaad ogeyn baan ku ogeynooy imika hadalay dhamaanba sida adigu rabtay ee ahaan saa adigu rabtaa sameey gabadha iyadoo ninkaas guursado ama iyadoo dhaafta labada mid ka dhaxeeya ma la soo maadin ha gabadhi ninkii waanu tagay wiilka fiican kala ma kulmeen sidii hooyadiiba maxaa ku tiisa dab daran soo anku ma dhina wax saqajaan dab daran ha u tigi ana raad diirkeed saqajaamadiisi weeyaa adma say doonta ilaha adma wad isagana wuxuu igu af buuxa ilmaha aniga ale ma dafiraayo ilmaha aniga laha anaale laakiin ana hadda guur uma jeedi ma rabo gabadhin inaan guursado haddii aad leedahay ilmiha aniga ale sababta guurka diisa maxay tahay inaan dacweeyaan damcay nin askari aan la hadlay markaan u sheegan ku waa wiilkaas iyo reerka un baa telefoonka la isku kay dul saaro waa reer lacag oo laga dambeeyo si kasta waan sameeyay nin baan si lacag yar oo haystay aad lawyer ku qabatay aquudooda ninka maxkamadda saaro markaas laanti magaceedu u sheegayba wax la yiraahdo maslaantaas aad mahadsantaa lacagta xitaa doonta ma rabno meesha lacag bay meel walba ku fangarays qoysal hada gabadhaada ibsineed waxa soo dhar kuma dhacin suuq imika hadalay dhamaan bixi dhacay see wax ku dhacay lama dhahay see aan ku xalnaa walda gabadhiina amba baxday eriye banaanka u saaray xakay aad maxay ka galay soo maad dhihin naagtan wajigeeda iga qari sax adigina soo kuma waayin ninkiina soo markaan la soo hadlay afxumada ima keenin waan eriye gabadhi wax ay ku sugan tahay hooyana hay calool xumadeeda kulli igama maqna habeen kastana waa ay oohin duhur kastana waa ay calaa marka aarinaysa maalmahan iska soo dhahay gurigaagana joog dhahay si kasta waan dhahay laga yaabay tirina ma ay soo xaar aniga ban kasta marka hore jecleen in ay dhagar gasho laakiin markaan arkin ninka sanaankiisa iyo hooyadii isma dhaamo waa dameer iyo dagtiis isagii hooyadii ayana arrimahaas waa kala hadlay kun jeer baan kala hadlay ma fahant anigana guriga waa imaanayaa kastoo de lagu aan ka xumaayo de gabar walaasheen oo maanta de gabar ahna de meelay tagta aysan haysan taasna aad baan uga xumahay inay dhacdo inay mar hore soo ogeysiisaan bay ahayd laakiin waxaan islahaa un hooyo gurigeeda gabadhii ku haysatay oo way ku horgudbantahay islaama fahant wal hadda iska soo celi gurigeeda ha imaato saan wax u xallin karnana soo celiyo gurigeeda ha imaato saan wax u xallin karnana wax waa xallinayna badi kolba dhinac loo laagay dadada iga dhigteen shalay dadana afka ilahayd un baa hadana maanta aad leedahay shalay hooyo maanta hadana waxa leedahay hooyo ana arrin baan ka hortaagnayn ma ahana gabadha albaabka ka soo xiray anaga shalay kuma aanan lahayn ma fahant gabadhaana isku hor aadinay sidoo qaladkeeda tus baan kula kaliya ma fahant meel aan ka raadiyo ama meel ay ku sugan tahay inay nooshii inay istishiiyeen kala ma ogaani dib malaana raadinahay gurigeedana waa ku soo celinaa saan wax u xallin karnana hooyo waa xallinayna waa ceeb ka sii darantana anaka ceeb nooga sii darana waxay gashay ma fahant tii horaaba ayada kaligeed ku koobnayd tan anaka hadda waalkeed baa ayleelay garanaysaan oo soo dabacdeen waa ilaahay maadii inkastoo anigu aan ribin bay markii inaan maxaa la dhahay eriyo laakiin dantu ay tiri ma war raadinayna iska dhaf ana raadinay insha Allah hooyo layahay inta saata saacan hooyo kuwii wax la baranaayo joogaan banaanka igu sugayaan gabdho waxaa soo akhrisanayna gurigooda haye walaalka mis aragteen walaalkii waa is aragnay hooyo adiga kolley xawlaha way iska qasan yihiin laakiin de hooyo macaan adaa meesha mas-uulka ah hooyo noo ah in xaabjiisa way wanaagsanayso maxay xaaladda ku dejiyaa ani hooyo shalay horta arrin kaa qariyay waxaa tegay guriga oo sacdiyo ma fahantay ya guriga sacdiyaa tegay maxaa ka hooyadan soo arkay horta si xun ila dhaqantay laakiin de hooyo waa hooyo xanaaqsan bay ahayd wax lagu sameeyay suma gabadha lagu adi maxaa ka doonta guriga sacdi yaa aad ku dhahay yaa ku baray aqoon maad u lahayd sidee maxaa la dhahay sacdi isku barateen hooyo sacdiya hadda ka hor dadkaasan dad isku level iyo isku dhaqan iyo isku maxaa la dhahaa mahay hooyo horta levelka iyo lacagta iyo hantida wax ma tarto ma fahantay qofka dadnimadiisa ilma yar wax ii sheegaya tahe adaa i dhashay ma wax kuma sheega hooyo ani saw arkale kuu sheega ma fahantay midda kale gabadha hooyo isku iskuulan soo ahayn 5 sano ka hor ciyaalnimadii isku iskuulan soo ahayn ma fahantay horena isku naqaanay hooyo markaas waxaas naqaanay 5 sano ka hor ma fahantay waxaas soo baran jiray dad arday soo ahayn ma garatay kul ana shaka dib baan ka ogaaday oo ay soo wacday lambarkeeda ma haynin Facebook iga soo qabatay fahmaysaa laakiin hooyo macaan wax walba nafsi maxay ku dhaawayde hooyo horta ugu qaylisay si xun ila hadashay laakiin wax ka soo qaad male hooyo aad ba hadii lacag nagu dhiciyo ilaahay uma keenay way u qaylinayso mid qofka ila socday ugu qaylinay oo saaxiibtay gabdhaha dariskay ku qaylinay moogtahay haye
سسترت هاي وقيس ما باس دبي ملهن inaa aadaba ma ahayn ba gurigeeda inaad tagta ma ahayn هاي waxa u aaday telefoonka iyo ma qabanaynin gabadha guriga laga soo ceeriyay hooyada way soo eriday maxaa kaa gala dil soo ceeriyo gabadha ayadaa guriga dhasha soo ayaday moogay jidkeeda ayaday dhiigeeda ayaday dhacaankeeda ha ceeriso hadday rabto hay cunugii wadana dhacankeena ma dhigeen maahan yaa kuu sheegay waxaas hooyo wiilka qirnooyo Soomaali dambiga inuu sameeyo gabadha uu leedahay uu akhlaaq xun yahay aniga naag banaankaas maxaa la dhahaa uur ku soo qaadayso inuu asaga leeyahay inuu nimanka leeyahay aniga ma ogi hooyo isaga sheeganaayee uu qaldan yahay uu ku edab daray dadka wiilka hooyo macaa wiilka khaldan 170 khaldan waayo gabadha masaakiinta dib u geystay hadda guriga ma joogto ma aqal meel joogto ma dhimato ma nooshahay ha dhimata deerta reerkeeda iyo dadkeeda ka dhimata hadee dadkeeda lacag isma fiirno hooyo nolosha ma fi dib ma fiirno sharaftayda fiirsanaya sharaftayda wiilka was dambiga sameeyay ma hooyo ma sameeynin se ku aad inuu dambiga sameeyay misala wax afku geliyo ku dhaadhiciyo ay soo sheeganaya baan cunug waa raba mid kale madax ku dhaw taqaan hooyo gabadha guursana hal maalin bisan qaba wax aqal mi hooyo bilaan ugu dhaqamiya halka maalin binuu qawmay heembo halkas maalin ku qaldaraa hooyo wiilka xumaad buu kula safanay xumaan kula safana waa xumaan ugu safanaya anaga isku level mani gabar shalay banaankaas uur ku yeelatay maanta gurigeeda ku soo xareysto sideen ku aaminaya inaa ilmaha wiilkayga dhalay hooyo soo ma sanadkan lacagtan iyo awoodan iyo hantida ku faanis soo biri ilaahay ka qaatay ma ana lacag kuma faan awoodna kuma faan waxbana kuma faan mi maqlaysaa isku level milyan hooyo ilaahana wala abuurtay islaamaanahay wala abuuranay hooyo sacuuda hooyo macna xariistan ka guurto maxaa waay naxariisiga guurto ma jirto adiga maanta ma kula tahay maxaa la dhahaa naag oo isha meelaha taagan inuu wiilkayga soo xareysto sharaf bay kuu tahay adiga naftigaa sharaf kuuma aha waa walaalka sharaftiisa ilaali sharaftaada ilaali sharafta reerkiina ilaali kul hooyo adanka waalidkaadana oo ah ma faati laakiin way macna wax kuwa talin lahaa wiilka walaalkeena cunugaas uu dhalay in madaxa saarno hooyo macna birka bal waxaan ugu karaan ana dhuqduqda ma rabin